muddo 46 sano ah ayaa laga joogaa tan iyo markii la afduubay diyaaradda Lufthansa duulimaadkeedii 181aad iyadoo loo tixgeliyo mid ka mid ah dhacdooyinka qeexaya waxa loogu yeeray deyrta Jarmalka. Shantii maalmood ee dhibaatadu socotay waxa la arkay mid ka mid ah diyaaradaha Boeing 737 ee ku suntan calanka Jarmalka oo ku sii jeeday Frankfurt balse u jihaystay Muqdisho, Soomaaliya. Dabayaaqadii 1977 waxa la arkay dhacdooyin taxana oo dhacay oo loo yaqaanay deyrta Jarmalka oo lagu sifeeyay weerar ay fuliyeen koox xagjir ah oo loo yaqaanay Jabhadda Ciidanka Cas. Jabhadda Ciidanka Cas waxay ahayd dhaqdhaqaaq bidixda fog ee Jarmalka galbeed oo la aasaasay sanadkii 1968. Haddaba afduubka diyaaradda Lufthansa ee duulimaadkii 181aad ayaa yimi kadib markii la xidhay dhowr xubnood oo muhiim ah oo ka tirsanaa jabhaddaasi. Bilowgii duulimaadka diyaaradda Lufthansa oo ahaa midkiisii 181aad waxa uu ku bilaabmay jawi caadi ah oo degan waxayna diyaaraddu ka soo kacday garoonka Palma de Mallorca ee dalka Spain waxayna ku wajahnayd magaalada Frankfurt ee Jarmalka. Xilligu waa 13 Oktoobar 1977 saacaduna waa labadii waqtiga maxalliga ah. Diyaaradda waxaa saarnaa 86 qof oo rakaab ah iyo 5 xubnood oo shaqaalaha diyaaradda, 2 duuliye iyo 3 qof oo shaqaalaha caadiga ee diyaaradda ka mid ahaa. Markii ay diyaaraddu maraysay hawada sare ee magaalada Marseille ee dalka Faransiiska ayaa waxa 4 qof oo Maleeshiya oo ka tirsanaa jabhadda caanka ah ee xoreynta Falastiin ay bilaabeen afduubka diyaaradda. Mid ka mid ah ayaa galay qolka diyaaradda laga hago halka ay 3 kale rakaabkii diyaaradda amar ku siiyeen inay gacmaha kor u taagaan. Duuliyihii labaad ee diyaaraddu ahaa Yagan Fietra ayaa laga soo saaray qolka laga hago diyaaradda waxaana la keenay qaybta dambe ee rakaabka. Waxa soo saaray Suhayr Yusuf Akash oo kooxda afduubka hogaaminayay. Duuliyihii isagu waday diyaaradda oo ahaa Yagan Schumann ayaa lagu qasbay inuu diyaaradda ka leexiyo Frankfurt una jiheeyo Larnaca, Qobrus. Markii ay diyaaraddu maraysay magaalada Rome dusheeda waxa duuliyuhu u sheegay afduubayaashii in diyaaraddu ay bilaa shidaal tahay isla markaana ay noqonayso inay magaalada Rome caga dhigtaan si ay u shidaalsadaan. Intii ay diyaaraddu ku sugnayd Rome waxa ay afduubayaashu codsadeen lacag dhan $15 milyan iyo in la sii daayo 10 xubnood oo ka tirsanaa jabhadda ciidanka cas oo ay xidhiir lahaayeen. Maamulka Talyaanigu waxa ay sheegeen inaanay arrinkaasi waxba ka qaban karin, beddelkeeda waxa ay fasaxeen inay diyaaraddu duusho isla habeenkaas. Dhowrkii maalmood ee xigay diyaaraddu waxay ku hakatay ama fadhiisatay meelo ka mid ah Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika. 2 saacadood iyo bar ay diyaaraddu ku hakatay magaalada Larnaca ee Qobrus ayaa la arkay diyaaradda oo mar kale shidaal qaadanaysa ka hor intaanay duulimaadkeeda sii wadan. Meelo badan oo Bariga Dhexe ah waa laga diiday inay soo caga dhigato balse ugu dambeyn Bahrain ayay soo fadhiisatay subaxnimadii 14 Oktoobar. Ciidamada maxalliga ah ayaa isku gadaamay diyaaradda markii ay timid Bahrain balse dib ayay isaga laabtay markii ay afduubayaashu ku hanjabeen inay dili doonaan duuliye Yagan Schumann oo ahaa duuliyihii koowaad ee diyaaradda. Midaasi waxay saamaxday inay haddana mar kale diyaaradda shidaalsadaan oo ay dib hawada u galaan. Caga dhigashadii taas xigtay waxay ahayd Dubai oo ay qasab noqotay inay soo fadhiistaan maadaama mar kale diyaaradda shidaalku kasii dhammaanayay. Diyaaradda ayaa in ka badan 2 maalmood ku sugnayd gudaha dalka Imaaraadka Carabta iyadoo muddadaas la isku dayay in la badbaadiyo diyaaradda. Waxayna ciidamada Jarmalka galbeed tababar degdeg ah u qaadanayeen sida ay u badbaadin lahaayeen diyaaraddaasi balse ma ay suurtagelin taasi oo intaan howlgalba la gelin ayay diyaaraddu aakhirkii dib u kacday duhurnimadii Oktoobar 16 1977. Caga dhigashadii taas xigtay waxay ahayd magaalada Cadan ee dalka Yemen oo laga diiday inay diyaaraddu soo fadhiisato isla markaana laga xidhay ama laga gooyay dhabada ay diyaaraduhu ku soo degaan. Waxayse diyaaraddu si degdeg ah ugu soo degtay meel bacaad ah oo u dhow barta ay diyaaraduhu soo caga dhigtaan. Ciidamada Yemen ee garoonku waxay amar ku siiyeen afduubayaasha inay diyaaradda ay soo afduubteen ay la dhaafaan gegidooda. Waxaana intaan diyaaraddu kicin afduubayaashu u ogolaadeen Kabtan Yagan Schumann inuu hubiyo xaaladda diyaaradda oo isagoo afduubayaasha u sheegay inaanay suurtagal ahayn inay duulimaad sameeyaan iyadoon la eegin xaaladda diyaaradda. Markii taas loo ogolaaday kadib kabtanka ayaa ka soo dib dhacay waqtiga ay ahayd inuu ku soo laabto gudaha diyaaradda. Waxa ayna afduubayaashu uga shakiyeen inuu macluumaad la wadaagay ciidanka garoonka waxaana markii uu soo laabtay lagu hortoogtay rakaabka diyaaradda. Dhacdadaas kadib Kabtan Yagan Fietra oo ahaa duuliyihii labaad ayaa lagu amray inuu kiciyo diyaaradda kadib markii ay shidaalsadeen. Waxayna diyaaraddu kacday 2 subaxnimo ee 17 Oktoobar. Duulimaadka ay diyaaraddu kaga duushay garoonka Cadan ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid gaabis ah oo aad u khatar badan. Duulimaadkii 181aad ee diyaaradda Lufthansa waxa uu markiisii ugu dambeysay soo caga dhigtay magaalada
magaalada Muqdisho 6:34 xilliga maxalliga ah 17kii Oktoobar ee sanadkii 1977 markii ay diyaaraddu soo caga dhigatay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxay afduubayaashu u ogolaadeen kabtanka inuu iskaga degi karo isagu diyaaradda balse waa uu diiday midaas iyada ah waxaana uu doortay inuu wax la qabo rakaabka iyo shaqaalaha diyaaradda dhanka kale afduubayaashu waxay qabteen ilaa 2:15 subaxnimo ee 18 Oktoobar in lagu sii daayo maxaabiista 10 ah waqti kadib waxa loo sheegay in xubnihii jabhadda la sii daayay oo ay ku soo wajahan yihiin Muqdisho dhanka kale diyaaradda Boeing 707 oo ay ka buuxaan ciidamo commandos oo si gaar ah u tababaran ayaa ku soo degay jawi mugdi ah si ay howlgal badbaado ah u sameeyaan bilowgii ciidamadu waxa ay shideen dab si ay u mashquuliyaan afduubayaasha waxayna ka soo galeen diyaaradda albaabka emergency-ga waxa taas xigtay dagaal kooban oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo sababay dhimashada 3 ka mid ah 4 afduubayaasha ahaa afduubihii afraad ayaa ku dhaawacmay sidoo kale waxa ku dhaawacmay 3 qof oo rakaabka ah iyo xubin ka mid ah shaqaalaha diyaaradda kuwaas ay rasaastu qabsatay howlgalku waxa uu qaatay 5 daqiiqo oo kaliya isagoo soo gabagaboobay 2:12 daqiiqo waqtiga maxalliga ah markii uu dhamaaday isku daygi samata bixinta rakaabka ayaa laga saaray diyaaradda iyadoo 86 qof ay nool yihiin kadib waxa loo duuliyay diyaaradda Cologne Germany iyadoo ay u heliyaan commandosku isla subaxdiiba